maanta mawduuceena waxaan kaga hadlaynaa deegaan loogu magac daray deegaanka aamusan. Dunidan waxaa ka buuxo arrin badan oo qarsoon oo aan weli la fahmin. Inkastoo horumarka aqoonta cilmi saynisku uu gaaray meel sare isla markaana la daahfuray oo ku jira badaha hoosteeda iyo hawada sare, haddana arrimaha aan weli la fahmin ee dhulka guntiisa ah waxaa ka mid ah deegaan loo yaqaano Mabimi Silent Zone oo ah deegaan aamusan, kaas oo ugu caansan goobaha dhulka ku yaala ee ka baxsan qawaaniinta nolosha caadiga ah. Goobtan ayaa ku taala saxaraha Mabimi ee ku yaala waqooyiga Mexico. Waa goob cajiib ah oo aanay ka shaqeynin isgaarsiinta oo dhan, telefishinka, moobilka, raadiyaha iyo xitaa qalabka GPS-ka iyo qalabka dayax-gacmeedka. Sidaas ayaa deegaankaasi lagu bixiyay deegaanka aamusan. Waa goob lagu arkay dhammaan arrimo la yaab leh, inkastoo ay iyadu bariga ku taalo dhinaca qad ahaan waxay isku beegan yihiin deegaanka Bermudo oo iyaduna caan ah. Arrimaha la yaabka leh ee lagu arkay waxaa ka mid ah iyagoo xayawaanku halkaasi ay si jamiici ah u dhintaan iyadoo ayna muuqan wax sababay. Waxaase iyana ka sii yaabisay markii ay arkeen in xayawaanka dhintay xitaa baqtigooda aanay cuneynin shimbiruhu sida gorgorka iyo wixii la mid ah. Cilmi-baarayaasha goobta tagay oo wax laga weydiiyay ayaa yiri halkaani telefoon ma dhaco, raadiyo ma dhegeysan kartid, TV ma daawan kartid. Waa deegaan la yaab leh oo aamusan. Waxaan filayaa daawade in aad wax badan ka ogaatay deegaankan. Si aad u hesho warbixinooyin kale iyo macluumaadka halkaan aan ku soo baahiyo, fadlan subscribe channelkan, like, comment, share